بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنا وأنا ونكسن داود يا halkan oo warbaahinta xogta dalka ku soo dhawaada warka xogta dalka qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah meedka Allah u naxariistay gudoomiyihii gobolka Banaadir ahna duqay magaalada Muqdisho oo maalin dib u dhacay xilli la filayay in maanta la soo gaarsiiyo magaalada Muqdisho 45 maalin kadib ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya oo dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho kadib socdaalkiisii deegaanada Galmudug maamulka Jubbaland oo xaaladii ugu adkeyd soo kala dhex gashay xilli odayaasha Jubbaland la sheegay in lagu qasbayo soo xulista xildhibaano la qortay ciidamada danab oo maanta si rasmi ah ula wareegay amniga garoonka diyaaradaha magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug hay'adda IMF oo shaacisay arrin ay dowladda Xasan Sheekh uga fiican tahay dowladda haatan ee madaxweyne Farmaajo iyo dowladda Seychelles oo dacwada culus ka gudbinaysa maamulka Somaliland warar dheeraad ah oo laga helay qarax maanta ka dhacay degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir qodobada dibadda aad ku daawan doontaan warka xogta dalkana waxaa kamid ah dadka ku dhintay laba dhul gariir oo ka dhacay dalka Philippines oo sare u kacay iyo banaanbaxyadii ugu xoogana oo hareeyay jamhuuriyadda Hong Kong markale daawasho wanaagsan saaxiibayaal halkan waa xogta dalka haddii aad channelkan ku cusub tahay hamugaan in aad saarto subscribe like aad dhahdo share aad la wadaagto saaxiibada ku soo dhawaada warkii warbaahinta xogta dalka daawateen oo intii hore ka dhameystiran aynu ku bilowno diyaaradda waday meedka Allah u naxariisto gudoomiyihii gobolka Banaadir ahna duqay magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer Yariiso ayaa dib u dhacday waxa dib u dhac ku yimid keenista magaalada Muqdisho la keenayo meedka marxuum Allah u naxariisto Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso oo ahaa gudoomiyihii gobolka Banaadir iyo duqay magaalada Muqdisho kaas oo qabanqaabadeeda laga dareemay guud ahaan magaalada caasimadda ay Muqdisho boqolaal ruux oo ku sugnaa garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho ayaa dib ugu laabtay guryahooda iyadoo aroornimadii hore maanta oo Sabtida ka soo shaqo tagay xaafadooda isla markaana isugu yimid garoonka diyaaradaha dancadda airport ee Muqdisho si ay u soo dhaweeyaan meedka marxuum Yariiso isla markaana ay kaga qayb galaan aaskiisa qaran ilaa iyo haatan lama oga sababta keentay dib u dhacaas yeeshay dalka Qatar ayaa ah dal ay xayiraad ku soo rogeen wadamada khaliijka qaarkood sidoo kale gudoomiyaha guddiga qabanqaabada aaska qaran ee loo sameeyay Allah u naxariisto gudoomiye Yariiso warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in guud ahaanba uu dib u dhacay keenista isagoona u sababeeyay cilad farsamo oo la soo diristay diyaaradii soo qaadi lahayd waxaana la sheegay in aroornimadii hore ee biri oo labada subaxnimo la keeni doono magaalada Muqdisho isla markaana aas qaran loogu sameyn doono warar aan la xaqiijin ayaa sheegay in dowladda dalkaas UK oo dhalashadeeda haystay injineer Yariiso loo qaaday meedka isla markaana la kala saarayo in dowladda Qatar isbitaaladeeda inta uu yaalay meedka la sumeeyay iyo inuu u geeriyoodo dhaawac ka soo gaaray magaalada Muqdisho waxa sidoo kale warar soo ifbaxay sheegayaan in laayatan la caafimaadka Yariiso marka uu tagay Qatar ilaa iyo waqtiga uu geeriyoodo inta u dhaxaysa lagu hubinayo dalka UK oo dhalashadeeda haysto injineer Yariiso wufuud kala duwan oo ka kala yimid maamul goboleedyada dalka ayaa ku soo qulqulay magaalada Muqdisho si ay uga qayb galaan aaska qaran ee loo sameeyay gudoomiye Yariiso madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Laftagaran ayaa Muqdisho soo gaaray isagoo taasi kadibna booqday ugaaska guud ee beesha uu ka dhashay injineer Yariiso Allah u raxmaday sidoo kale wafdi uu hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa maalintii shalay ahayd soo gaaray magaalada Muqdisho si aaska ay qaybtooda kaga qaataan wufuud ka socota maamulada Galmudug iyo Puntland ayaa sidoo kale la filayaa inay soo gaaraan caasimadda Muqdisho si ay si wadajir uga qayb qaataan aaska loo sameeyay Allah u raxmaday gudoomiyihii gobolka Banaadir ahna duqay Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso dhanka kalena ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa 45 maalmood kadib dib ugu soo laabtay caasimadda Muqdisho ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo wafdi hogaaminaya ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho kadib markii safar qaatay in ka badan bil uu ugu maqnaa deegaano ka tirsan maamul goboleedka Galmudug ra'iisul wasaare Khayre iyo wafdigiisa ayaa waxa garoonka diyaaradaha dancadda ku soo dhaweeyay xubno ka tirsan golihiisa wasiirada iyo xildhibaano ka tirsan labada gole muddadii uu booqashada ku sheegay ra'iisul wasaare Khayre deegaano ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug ayaa waxa uu booqday magaalooyin dhowr ah oo ka tirsan maamulkaas ujeedada booqashada ra'iisul wasaare Khayre ee Galmudug ayaa ahayd sidii loo qaban lahaa shir dib u heshiisiinad iyo sidoo kale doorashada madaxweynaha Galmudug waxa uu ku guuleystay ra'iisul wasaare Khayre in heshiis la gaarto dowladda federaalka Soomaaliya ururka Ahlusunnah isla markaana ay dowladdu la wareegtay ciidamada iyo hubka ururka Ahlusunnah iyadoo boqolaal ka tirsan ciidamada Ahlusunnah ay ku biireen ciidamada dowladda Soomaaliya dib ugu soo laabashada ra'iisul wasaare Khayre ee Muqdisho ayaa ku soo beegmaysa xilli la sugayo in uu laga wada qayb galo aaska qaran ee Muqdisho lagu sameeyo duqi Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso weli waxaad daawanaysaan warka warbaahinta xogta dalka qodobada dhaxana waan ku gudu jirnaaye ciidamada danab ee dowladda Soomaaliya ayaa si rasmi ah ula wareegay amniga garoonka diyaaradaha magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka ku wareejiyay ammaanka garoonka diyaaradaha Ugaas Nuur ee magaalada Dhuusamareeb. ciidanka danab ee xoogga dalka ayaa lagu wareejiyay amniga garoonka diyaaradaha ee magaalada Dhuusamareeb ayaa saldhigan doona sida la sheegay saldhigyana ka samaysan doona kontaroolada laga galo garoonka la yiraahdo Ugaas Nuur, waxaana halkaasi laga qaaday ciidamo hore ugu sugnaan. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa kormeer ugu tagay ciidanka lagu wareejiyay garoonka Dhuusamareeb isagoo sida la sheegana kula dardaarmay adkeynta amniga garoonkaasi. shalay ayaa ahayd markii ciidamada federaalka iyo maamulka galmudug kuwiisa ay isku afgarteen in ammaanka magaalada Dhuusamareeb lagu wareejiyay ciidanka ammaanka dowladda Soomaaliya, waxaana wasiirka amniga Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale uu sheegay in amniga guud ay mas'uul ka yihiin ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya. isku soo wada duub ra-iisul wasaare Khayre ayaa ku wareejintiisa ciidamada danab garoonka diyaaradaha ee magaalada Dhuusamareeb kadib u soo kacay Muqdisho oo uu soo gaaro xilli la filayo in Muqdisho kaga qayb galo aaska qaran ee la wada filayo in loo sameeyo garoonka gudaha Muqdisho lagu sameeyo duqi Muqdisho Allahu raxmade Cabdiraxmaan Cumar Ismaan Yariisow oo dhaawac 24 July qarax ka dhacay Muqdisho ka soo gaaray ugu dambeyn Khamiistii la soo dhaafay ugu geeriyooday magaalada Dooxa ee dalka Qatar. warka xogta dalka ayaa weli daawanaysan Jubbaland haddii ay eegnana tuunkii ugu weynaa ayaa dhashay kadib markii mid ka mid ah golaha wasiirada Jubbaland uu sheegay in si qasab ah odayaasha loogu geenayo xildhibaano ay soo doortaan. aadan oo xirso ah wasiirka qorsheynta dowlad goboleedka Jubbaland ayaa ku eedeeyay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland oo uu ka mid yahay madaxweyne ku-xigeenka koowaad Maxamuud Sayid aadan iyo wasiirka amniga Jubbaland in ay faragelin toos ku hayaan odayaasha dhaqanka. wasiirka ayaa maalintii ugu dambeysay waxa uu muuqday khilaafka kala dhaxeeyay madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland iyo wasiirka amniga Cabdiraxmaan Janan, waxaana sheegay in uu sida uu sheegay sharaf dhac ay ku yihiin waxgaradka. maalin ka hor ayuu sheegay wasiir xirsi in waxgaradka gobolka Gado caburin iyo sharaf dirraba ay ku hayaan labada mas'uul isla markaana aysan haysan fursad ay ku soo xulaan xildhibaanada. sidoo kale maanta ayuu ugu dambeyn bartiisa Twitterka ku soo qoray in wasiir ka tirsan Jubbaland oo odayaasha beeshiisa u gacan geliyay liis xildhibaano haddii ay bedelaanna ay kala kulmi doonaan qatar kale. xirsi ayaa sida uu sheegay lagu tilmaamaa inuu ka mid yahay saaxiibada u dhow madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe, waxaana ka mid ah xubnaha sida weyn u difaaci jiray sidoo kalena wasaarado kala duwan ka soo qabtay Jubbaland. wasiirka amniga Cabdirashiid Janane iyo madaxweyne ku-xigeenka labadaba wili kama aysan hadlin eedeymaha kaga imaanaya wasiir xirsi oo ah wasiirka qorsheynta maamul goboleedka Jubbaland. si kastaba ha ahaatee waxaa kacsan xaaladda doorasho ee dowlad goboleedka Jubbaland xilli maamulkaasi bisha Agoosto ee haatan ku guda jirna 15keeda uu isku diyaarinayo in doorasho u dareeraan dadkiisu, haddana waxaa soo taray eedaha kala duwan iyo sidoo kale tuhunada laga muujinayo in doorasho madax bannaan ay ka dhacdo deegaanada dowlad goboleedkaasi Jubbaland xilli ay odayaasha la tartamaya iyo musharaxiintaba la baratamaya madaxweyne Axmed Madoobe guud ahaanba ka soo horjeesteen doorashada ka dhacaysa sida la sheegay deegaanada dowlad goboleedkaasi Jubbaland. dhanka kalena wararka ugu dambeeyay ee qodobada Soomaalida ayaan ku sii saqaynaa xogta dalkana saaxiibeel waa daawanaysan. warar dheeraad waxay ka soo baxayaan qarax ka dhacay degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir. xaafadda shaqti la yiraahdo ee degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir wararka inaga soo gaaraya ayaa sheegaya in gaari nooca raaxada oo ay saarnaayeen ruux raga iyo ruux haweenaya qarax lagu leegtay xilli halkaas ay marayeen. qaraxa waxaa la sheegay inuu ahaa miinada nooca gawaarida lagu dhajiyay isla markaana hormud kontaroolka laga hago, waxaana halkaas sida la sheegay ugu dambeyn qaraxa ay kula kacday iyagoo halkaas maraya. ninkii gaariga waday isla markaana wadaha gaariga ahaa ayaa halkaas ku geeriyooday. ruuxa haweeneyda ahna waxaa la xaqiijiyay in dhaawac halis uu ka soo gaaray dhinaca hoose ee jirkeeda gaar ahaan lugaha. lama oga labada ruux ee gaariga saaran waxay ahaayeen cid qaraxa ugu xirtay iyo guud ahaanba faahfaahin buuxda oo ku saabsanaa saacada waxaa la soo warinaya in xaalad kacsan halkaasi ay ka jirtay saacadii la soo dhaafay ciidamada dowladda halkaasi gaaray baaritaano kooban oo ka sameeyeen kadib xaaladdu ay ku soo laabatay si caadi ah. isla goobta wararka ka yimaada waxa ay sheegeen in laba mooto bajaaj iskula dhaceen taasoo sababtay in ruux gabar ah uu dhaawac halis ka soo gaaray kadib markii bajaajyadu ay si adag isugu dhaceen. mid ka mid ah darawaliintana dhaawac fudud ayaa la sheegay inuu ka soo gaaray halka kan kalena guud ahaanba uu bad qabo. waxaa la sheegayaa in ay mooto bajaajta markaas ku dhaceen kadib halkaas ay gaareen dadweyne fara badan kuwaas oo goobta ka qaaday dhaawacyada halkaas ka dhashay. wadayaasha mooto bajaajka iyo shiralka mootooyinka ay galayaan ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay ku soo badanaya caasimada Muqdisho, waxaana loo aaneynayaa wadooyinka qaarkood ah kuwa burbursan iyo wadayaasha mooto bajaajka iyo guud ahaanba gaadiidka qaarkood ah kuwa aad khibradooda u hooseyso isla markaana xawaare sare ku kaxeeya gaadiidka, taasoo sababta in inta Muqdisho wadooyinkooda iyo guud ahaanba gobolada ku safrayaan ay galaan shirar kala duwan. qaybaha dambe ee warka xogta dalka ayaan ku sii saqaynaa daawadayaal. dhanka kalena hay'adda lacagta adduunka IMF ayaa shaacisay arrin ay dowladda Xasan Sheekh Maxamuud uga fiican tahay dowladda haatan shaqeysa ee madaxweyne Farmaajo. hay'adda lacagta adduunka IMF warbixin cusub soo saartay ayaa sheegtay in kobaca dhaqaalaha Soomaaliya uu hoos u dhacay labada sano ee jirta dowladda uu hogaamiye Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. IMF ayaa shaacisay in dhaqaalaha iyo sidoo kale wax soo saarka dalka
uusan isbedelayn sanadkan isla markaana uu ahaan doono 2.9 boqolkiiba. sidoo kale hay-adda ayaa xusay inuu aad u hooseeyo dakhliga soo gala qofka iyadoo sidoo kale ku talisay in la raadiyo ilo dhaqaale oo lagu xoojiyo inkasta oo uu koror jiro maaliyadda ay soo fiicnaanayso laakiin dakhliga qofka soo gala waa mid hooseeya waa in la helo in lagu xoojinayo dhaqaalaha laguna dhimayo farqiga ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay IMF. warbixintan ayaa ku soo aadaysa xilli xukuumadda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda maaliyadda muddooyinkii ugu dambeeyay ay shaacisay isbeddel ay ku sameysay isla markaana ay dardar gelisay dhinaca kobaca dhaqaalaha Soomaaliya ayaana tiigsanaysa in laga cafiyo guud ahaan deymaha laga leeyahay wadamada dunida. qodobka ugu dambeeyay dhacdooyinka Soomaaliyana dowladda Seychelles ayaa dacwad culus ka gudbinaysa maamulka Somaliland. dowladda Seychelles ayaa si xoogan u cambaareysay ilaa 19 maxbuus oo loo haystay burcadbadeednimo kuwaas oo dhawaan u fidiyay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi afis madaxweyne lagana sii daayay xabsiyo ay ugu xirnaayeen. warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaas ayaa lagu sheegay in Somaliland ay ka baxday heshiis ay hore ula gashay Seychelles kaas oo ku aadan in maxaabiista lagu sida sheegay lagu eedeeyay burcadbadeednimada ay ku sii jiraan xabsiga inta ay ka dhameysanayeen xukunka ku dhacay. sidoo kale Seychelles ayaa sheegtay in ay la yaab ku noqotay tallaabada laga sii daayay maxaabiistan ee dib loogu siiyay xurriyadooda. burcadbadeedyada Soomaalida ayaa intooda badan waxay ku nool yihiin deegaanada maamul goboleedka Puntland iyo kuwa Somaliland xilli Muuse Biixi oo ah madaxweynaha Somaliland toddobaadkii la soo dhaafay oo afis madaxweyne u fidiyay ku dhawaad 20 maxbuus. waxaad daawaneysaan warka xogta dalka qodobada Soomaalida waa inaga inta imikana qodobada dibadda. laba dhul gariir oo mataana ayaa ka dhacay bartamaha iyo koonfurta dalka Philippines. wararka ugu dambeeyay oo ka qoraysay wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa waxay sheegayaan in laba dhul gariir ay luxeen caasimadda iyo sidoo kale koonfurta dalkaasi 5.6 iyo 7.2 ayaa lagu kala sheegay labada dhul gariir oo aad u kala xoogana kuwaas oo aroornimadii hore ee saaka si weyn u gilgilay gudaha dalkaasi. waxaa la soo warinayaa in xaalad adag ay jirto isla markaana ay jiraan daara aad u dheer oo dumay. sidoo kale dawladdu waxay ku talisay in dadku ay ka fogaadaan goobaha ay ku yaalaan daaraha aadka u dheer. dad inta iyo kuwa dhaawacma ayaa la sheegayaa inay jiraan iyadoo xaalad adagna inay la soo daristay dadka qaarkoodna laga soo warinayo dalkaasi iyadoo si adagna looga hadlayo labada dhul gariir ee mataanaha ku dhufatay dalkaasi Philippines. ugu dambeyntii xaaladda mudaharaadyo ee dalkaasi Hong Kong ayaa ka sii daray kadib markii ay isku soo baxeen dad fara badan hareeraha dalkaasi Hong Kong la yiraahdo. waxaa sii taraya mudaharaadyada kooxaha ololeenaya dimuqraadiyiinta ayaana hareeyay guud ahaanba walow dowladda Shiinaha ay sida sheegtay ka digtay in halkaasi uu qalalaasa ka dhaco. dhanka kale waxaa jira dad ka socda dhulweynaha Shiinaha oo iyana ka qayb galaya dibadbaxyo kale oo ka soo horjeeda oo lagu taageerayo ciidamada booliska Hong Kong kuwaas oo lagu eedeeyay in ay awood badan u isticmaalaan dibadbaxayaasha kooxaha mucaaradkana waxay sheegeen in qorsheynayaan dibadbaxyo labada maalmood ay soo aadan ka dhaca halkaasi. guud ahaan waa naga intaa war wixii dalkii dibadda naga soo gaaraad ka daawanaysan xogta dalka waad ku maasantahay daawashada. haddii aad channelkan ku cusub tahay ha mogaan inaad saarto subscribe like aad dhahdo sharena aad la wadaagto saaxiibada. waad ku maasantahay daawashadaada warkan kiisa xiga saaxiibayaal nabadgelyo nooli kulanti ammaan Allah.